بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما يستحب من الصيام. وعن كهذا هل كان إن شاء الله تعالى صومك سنة oo ruuxa muslimka ah la rabo inuu soomo. dabcan waan wada ogsoonahay soomka fadliga uu leeyahay bisha ramadaan inay waajib ku tahay dadka muslimiinta inay soomaan. marka meeshan waxaan gaar ahaan ugaga hadlayay soon sunno ah oo gaar ah oo ayaamaha qaar iyo la soomayo dadka muslimka ay soomayaan. maa yustaxabu min asiyaami. yustaxabu siyaamu alayaam attaaliya. maalmahan soo socda yaa ruux muslimka ah inuu ku daro oo macnaha aan waajib ahayn ee iska ziyaada ah. yoomu carafa ligayri alxaaji. maalinka carafa in la soomo weeye ninku hadduuna xaaji ahayn. maalinkaasina wahuwa taasicu dilxija. bisha dilxija la yidhaah ee 12aad hijriga marka la yidhaaho waxa weeyaan maalinkeeda 9aad weeye. liqowlihi sala allahu caleyhi wasalam nabiga ayaa wuxuu yidhi soomu yoomu carafa yukafiru dunuuba sanatayn. maalinka carafo laba sannadood buu ilaahay dembigooda ku dhaafaa. maadiya wa mustaqbilatin. maadiyatin sanad tagtay iyo mustaqbilatin sanad imanaysa. kolka maalinkaas in la soomo weeye insha allahu tacaala. way soo socotaa hadda sanadkan hadda waxa weye way bilaabatay 10ku marka inuu ruuxa muslimka iyo maalinka carafa uu ka tagto maaha. wa soomu yoomu caashuuraa yukafiru sanatan maadiya. maalinka caashuurada la yidhaahana iyadana ruuxa muslimka inuu soomaa u fiican oo sanad buu ilaahay ku dhaafaa. yukafiru sanatan maadiya, sanad tagtay buu alla ku dhaafaa maalinkaas soomkiisa. oo waa caashuuradana waxaa looga jeedaa bisha sanadka bilowgiisa carabiga ee muxaram la yidhaaho maalinkeeda 10aad weeye. marka nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid ku yidhi haddaan noolaado la asuumanna taasicata. waxaan la soomayaa buu yidhi caashuurada 10ka maalinka 10aad waxaan la soomayaa buu yidhi maalinka 9aad baan la soomi. khilaafan iyo yahuud isagoo yahuud baan khilaafayaa buu yidhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam. laakiin nabigu ma noolaanin baa layidhi wuu dhintay. kadib ummadiisa waa amarkaasi haysatayoo maalinka taasuucada oo bisha muxarama ee 9aad iyo caashuurada oo iyadana la soomayo labadaa beriba inuu soomaa fiican. hadduu ku daro 11 hadduu ku darana waa 11 hadduu ku darana oo kasii fiican. cilada maalinkaa muxaram loo soomayo caashuurada waxa weeye markii nabiga la weydiiyey caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yowmun nasara allaahu muusaa calaa fircoon. maalin ilaahay waxa weeye subxaanahu watacaala uu muuse u kaalmeeyey nebiyullaahi muusa calaa fircoon looga kaalmeeyey weeye. marka annaguna ambiyaduna waxa weye walaalay ku ahayn diinta towxiidka. marka waan soomayaa buu yidhi maalinkaas. marka shukran lilaahi subxaanahu watacaala ilaahay towxiidkiibuu u kaalmeeyey cala alkufri, kufrigii baa looga kaalmeeyey. marka maalinkaas in la soomo weeye. maalinka kale waxa weeye yowmu caashuuraa wa yowmu taasuucaa wahuma alcaashiru wataasicu. waan sheegay kaas waxa weye kuwa waan ka hadlay min shahri muxaram. liqowlihi sala allahu caleyhi wasalam nabiga wuxuu yidhi wa sowmu yowmu caashuuraa an yukafiru sanatan maadiya kamaa saama sala allahu caleyhi wasalam yowmu caashuuraa. nabigu wuu soomay wa amara bisiyaami soomkiisana waa amray. wa qaala wuxuu yidhi idaa kaana alcaamu almuqbilu in shaa allahu sumnaa alyowma ataasic. waa anigii hadda macnaha soo sheegayo maalinka waxaan la soomay buu yidhi 9aad khilaafan lilyahuud. sunnaha waxaa ka mid ah 6 ayaamin min shuwaal. shuwaalka bisha ka dambaysa ramadaanta in laga soomo 6 beri. liqowlihi sala allahu caleyhi wasalam nabigu uu yidhi man saama ramadaan ninka ramadaan sooma wa atbacahu raaciya 6 raaciya oo min shuwaal. ninka ramadaan sooma oo 6 shuwaalka ka midana ku dara kaana ka siyaami dahri. wuxuu la mid yahay nin sanadkii dhanaaba soomay.
dayb oo waa kaanahu saama sanata ku lahaa sanadkii dhanaa inuu soomay baad moodaa marka say ku noqonaysaa arrintaasi waxay ku noqonaysaa liannahu ruuxu marka uu maxaanku idhaahaa la yidhaaho yani alcasharatu bicashri amhaal alxasanatu bicashri amraaliha marka la yidhaaho oo looga jeedo hadduu ruuxu hal xasano sameeyo hal khayra toonbay u dhigantaa marka la yidhaaho dee waxay noqonaysaa sanadkii dhanaa adoo soomay oo kale markaad ramadaanta soonto yani eed ku darto 6daas ka-anaka sanadkii oo dhanba adoo soomay wey oo halkii maalin aad soomantayba 10 baa lagaaga dhigay wey macnaheedu saasay ku dhib yar tahay ka afraad waxa weeye annisfu alawal min shahri shacbaan bisha shacbaan la yidhaaho 10keeda hore yani ruuxu inuu soomo ayaa fiican annisfu alawal min shacbaan liqowli caaishata radia allahu canha caaisha waxay tidhi maa ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabiga ma arag istakmala siyaama shahrin qatu ilaa ramadaan bil isagoo soonkeeda dhameeyey weli ma arag bay tidhi ilaa ramadaan mooye wamaa ra-aytuhu ma ana arag bay tidhi fii shahrin qadu akthara siyaaman inuu ka soon badnaa bil minhu fii shacbaan shacbaan baa ugu badnayd buu yidhi bilaha kale dayib marka 10kaa hore yaa la soomaa laakiin waa sunno uun macnaha oo yani macnaha nabigu inagu booriyey calayhi salaatu wassalaam ka shanaad waxa weeye khaamis ashahru alawal alcashru alawal min shahri dilxija 10ka aan hadda ku jirno weeye oo bisha dilxija la yidhaaho awalkeeda ah yani ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi qur-aanka walfajr baan ku dhaartay walayaalin cashir walfajri fajrkaan ku dhaartay walayaalin habeenaan ku dhaartan 10 oo 10 ya walfajri walayaalin 10 washafci walwatr washafcigaa ku dhaartay tirada oo dhan walwatri iyo tirada isdheer kolka ilaahay wuu ku dhaartaa yani ayaamihiisa iyo bilihiisa iyo makhluuqiisa ilaahay uu ku dhaartayo wax la yaab leh taasi ma aha laakiin waxay ku tusinaysaa aayaddu fadliga ay 10kan beri leeyihiin liqowlihi orsoo nabiguna xadiid kale wuxuu ku yidhi liqowlihi sala allahu alay wasalam maa min ayaamin ayaama ma jiraan alcamalu asaalixu camalka wanaagsan fiihaa dhexdeeda la sameeyo axabu ilaahay uu ka jecel yahay ilallaahi ilaahay xaggiisa caza wajal min hadihi alayaam buu yidhi ayaamahan maalmo ilaahay camal saalixa uu ka jecel yahay in la sameeyo ma jirto maal ilaahay uu ka jecel yahay camal saalixa in la sameeyo ayaamahan ma jirto ayaamo uu ilaahay ka jecel yahay waa kuwe yacni waxaa loo jeedaa alcashar alawal 10ka hore oo min dilxija bishan dilxija ah waa kuwan hadda aan ku jirnay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuulallah rasuulka ilaahow wala ljihaadu fii sabiilillah xataa jihaadka may ka fadli badan tahay qaala nabigu wuxuu yidhi wala ljihaadu fii sabiilillah xataa jihaadka way ka fadli badan tahay ilaa rajulu nin mooyaane buu yidhi kharaja baxay binafsihi naftiisa la baxay wa maalihi maalkiisa la baxay uma lam yarjic min dalika bishay oon waxbaba ka soo noqonin mooyaane buu yidhi nin intuu baxay aan waxbaba ka soo noqon marka isagiina u dhintay maalkiisina u dhintay jihaadku ku dhintay kaa haddee wax lamidii ma jiro laakiin wax ka fadli badan camal kale oo ka fadli badan ayaamahan in la sameeyo ma jirto marka ruuxa muslimka waxaa loo baahan yahay inuu maaragtay uu dadaalo uu fadli ilaahay raadiyo uu soomo uu qur-aan baran akhristo uu sadaqo badan la baxo oo 10kan hadda aan ku jirno yani alla bari badan in la sameeyo weeyaan waxa kale oo aan halkaa ku darayaa hadduu ruuxu sameynhayo maxaanku yidhaha udxiya oo waa laga rabaa ruux muslim kasta guri kasta oo muslina waa in laga gowraco neef reerka iyo caayiladiisa hal neef ha ku filan waa inuu markaa hadduu maaragtay udxiyadaa bixinhayo waa inuuna ciddiyaha iska gurin timahana uuna iska goynin ilaa uu ka gowracayo oo macnaha laga gaadhayo maalinka ciidda ka hor waa inuu timaha daysto ciddiyaha iyo kulli inuu wada daysto weeyaan nasuus baa ku soo aroortay marka meeshan waxaan uga jeednaa yani waa maalmo fadli badan oo cibaadada rabbi ruuxu inuu aada ugu dadaalo loo baahan yahay waa la bari sameeyo waxa dee fadliguna soomkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado waxyaalaha ugu fiican ayuu ka mid yahay marka soonka in lagu dadaalo weeyaan nacam ka lixaad waxa weeye shahru lmuxaram liqowlihi sala allahu caleyh wasalam cindamaa su-ila wuxuu yidhi ayu siyaami afdal baa la yidhi soom maxaa ugu fadli badan rasuulka ilaahay ow bacda ramadaan kadib qaala wuxuu yidhi shahrullaahi
التي تدعى المحرم تدعونه محرم بش أيام مارتي ليراه محرم بش إلهي حرم ليراه تاسع وفضل بدن بودي مركوا بشا وحويان سنة هجرك أو هريسة طبعا بليه مسلمين تو دتكن هذا مسلمين تي بليه عادي كها مسلمين تو قمري كها معناها وي هالمامين لكن هو محرم تو هريسة صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة انت وي بلاهاس إنك وحي نويه وح مهمة وحي مهم ويه وحويه لأنه عبادتي بينك حدا وروح مسلم كيه هذا مثلا رمضان كل هذا استعمال بشهر رمضان يعني صدق سومي marka waa inaad bilaha taqaano ruuxa muslimka waa inuu hijriyada la socdo hijriyaduna hadda maanta waxay maraysaa 1441 bay maraysaa hadda dad badan baa halmaamo aan garanaynin soonka la soomay sunnada waxa kamid ah ayaamul bidka in la soomo ayaamul bidkuna waxa weeye waa 13 iyo 14 iyo 15 bil kasta in laga soomo وفضل بدن بيلاده هدور روح وكرو أدوا في عنتاي ولحديث قول أبي ذر ويلي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال أمري من الشهر 3 أيام أن نصوم إن صون نبويلي من الشهر 3 أيام بالكست إن صدق كصون نبي قلنا أمري ويلي لكن أمر كاس واجب معها و13 14 15 وقال هي كالصوم الدهري نينك ساس سميا ونين سنة كي للناس صومي وكله فضيقة مالمها سنها وحا كميدا يوم الاثنين ويوم الخميس إن خميس تلا صومو إيو اثنين تا يوم الاثنين وحوية تين نبي الله عليه أو يوم الاثنين وحوية مالنكي من نبي الله عليه الصلاة والسلام إيو خميس تا لبدا صبوح إن أمرئنا صونا وفضل بدن بإليهين لما روي وحا لقوري عنه صلى الله عليه وسلم نبي وحا لقشيغي كان أكثر ما يصوم الاثنين مالنكي اثنين تا أيو صوم جري والخميس خميس تا فسئل عن ذلك ولا ويديي محاد الصومسا فقال وحي إن الأعمال أعماشا تعرض وحل صوب بندقا كل يوم اثنين يعني وخميس فيغفر الله إلهي وقدام بدافا لكل مسلم كستا أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين إلا كوا كالهجرودية كالتقيم وياني فيقول أخروهما إلهي وحليه الدبو دقا waxaan rabaa inaan wax yaryar taabto meesha muhaajiriintu waa dad wax dhexmaray oo kala tegay laakiin waxay ku xidhan tahay waxa dhexmaray muxuu yahay haddaad ruuxa xagga diinta kula colowday oo diinta uu ku tuntay ama sunnada nabiga uu ishortaagay oo waxa weeye uu diintii ishortaagayo taas kuma jirto haddii ruuxu macsiyo ilaahay aad uga digtay oo tiri waar ma sidaa niyow iska daa oo wixii ku adkaaday maya waxaa la jeedaa dad xurguf adduunyo iyo waxaas dhex martay ayay xadiidku sheegayaa laakiin haddii xagga diinta ruuxu labada ruuxa diinta ku kala taga kuwa ma aha kuwa laga hadlayahay dayb waxaa ka mid a siyaamu yowmin wa iftaaru yowmin in maalin la soomo maalinna la afuro sidaas oo waxoogaa maaragtay iyaduna sunnahay ka mid tahay laakiin liqowlihi sal alla ly slam nabiga wuxuu xadiid ku yidhi axabu siyaami soom waxa ilaahay ugu fiican ilallaahi xaggiisa siyaamu daawuud soonkiisii nabiyullaahi daawuud baa soomi jiray baa layidhi waacnaha muxuu ahaa wa axabu salaati salaad waxaa alla u jeclaa ila salaati salaad oo dhanba salaatu daawuud kaana yanaamu wuxuu seexan jiray nisfa leyl nisfiga hore ee habeenka wayaquumu thuluthahu thuluthkuu kici jiray markay 2 meelood tagto meesha saddexaad وينام سدسه مركز لح ميلو تكتمش عشان تكتمش اللي حد بكعج يسيحن جري هذانا وكان يصوم وحجوب جري يوما مال ويفطر يوما مال ويفطر جري تاسي وحقا وحن مرينا إنه وعدتها لكن هو السنة يدنا كلكس كوا عن شيء أيها كمدا صوم كسنها الروح مسلم كعلى جرب إنه صومه واجبنا معها لكن معناها فضل بدن بتكيرسها موضوع waxaan soo qaatay laano ayaamahan maalmahan hadda waxaan ku jirnaa 10kii dilxijaan ku jirnaa ee fadliga badnaa marka ruuxa muslimka inuu soomo waa loo baahan yahay inuu quraan akhristo waa looga baahan yahay ilaahay hayna difaaco subhanahu wa ta'ala oo waxaan oo dhan naga difaaco diintana ilaahay hayna garansiiyo
udxiyadiina way soo dhowdahay iyaduna waasafaadkeeda iyo wanaageedu wuu soo socdaa ruuxu inuu bixiyo weeye muslimka hadduu halkan ku gowrici kari waayo maaragtay australia gudaheeda wuxuu u diri karaa dibadaha oo wakaala wax layaab u samaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala khayrka hayna waafajiyo waxa aan waafaqay fa min allah haddaan gab sameeyeyna fa minii wa min ashaytaan wallahu aclam wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalim